gabar yahay sidee uga ilaalsan kartaa ninkaada dumarka kale inuusan haweenay kala damcin sida ninkaada uga dhigi kartaa waa mowduuc xasaasi ah laga yaabo dad badan inay dhegta ku hayaan waxaad ogaataa gabar yahay nimanka noloshooda inay soo martaa laga yaabaa dhacdooyin kala duwan xaaladaha qaar waxaa laga yaabaa inay u soo bambaxaan haween kale oo ay soo jiitaan inta badanna waxay u badan yihiin waa ragga xaasaskooda nolosha kala dhaxaysa ay isbaraanbarayso oo iskhilaafsan tahay marka wuxuu raadinayaa waddo kale oo uga badbaado haweenaydiisaas nolol kale albaabkuu ka gala ayuu daydayayaa inuusan taa daydayin sidoo uga dhigi kartaa oo u kasban kartaa inuusan meel kale daydayin marka maxaa kula gudboon inaad samaysid haddaad xaas tahay haweenay yahay xaaladda noocaas oo ninkaada uga ilaalsan kartaa dumarka kale oo usan u damaacinayn qaab nooceeya ku soo jiidan kartaa oo ninkaada qalbigiisa ugu abuuri kartaa inuusan haweenay kale damaacin ousa fiidhin sida aqlabka ah qodobadaas nagala soco badbaada channel qodobka ugu horreeya aan kuu soo gudbinayno waxaa weeye laba jibaar muhiimadda aad ninkaada siinaysid inaad danaynaysid oo qaali la tahay dareensii inaad ninkaada ilaalsatid waa shay kuu muhiima oo lagaba maarmaan ah laakiin arrintaa waxay ku imaanaysaa inaad kordhisid ahmiyadda uu kuu leeyahay weliba si saa'ida guriga in badan ha ka maqnaan xafladahan baaseed aadaysa iska ilaali wareeggan iska ilaali si uusan u dareemin bannaansho iyo fursad uu helay kaasoo in badan oo ragga ka mid ah ay xujo uga dhigtaan markay haweenkooda wareegaan inay xaas kala raadiyaan waana sabab keeni kara khiyaanada qoyska dhinaca kale ku dadaal gabar yahay inaad ku mashquushid arrimaha gurigaada una istaag inaad ka shaqaysid gurigaada markuu ninkaada shaqada aado ama safar jiro ama uu joogaba dareensii wakhtigu kula joogayo wakhtiga aad kaa maqan yahay inaad tahay qof ku dadaalaya ha iska wareegin maalaayacni ha iska aadin ummad kalean waxba ku ahayna dabagelin ha ku mashquulin wax kale asaga iyo dantaada qoyskiisa ku mashquul wuxuu dareemayaa inaad tahay qof muhiimad siinaya laakiin haddaad saaxada u bannaysid meel kale ayuu daydayayaa qodobka kale waxaa weeye ku dadaal gabar yahay oo muhiimad sii nadaafadaada iyo muuqaalkaada kan gudaha iyo kan dibaddaba ku dadaal gabar yahay inaad noqotid qof nadiif ah oo nadaafad leh oo soo ifaya oo soo carfaya wakhti walba ninkaadu uu ku xiisoonayaa mar kasta wakhtiga qaaliga la ahna waa wakhtiga uu guriga ku soo noqonayo sababtoo ah wuxuu og yahay inaad uga horraysid guriga oo aad sugaysid qodobka kale waxaa weeye u diyaari ninkaada waxyaala uu la fajaco oo uusan kaa filanayn oo wanaagsan u muuji dareemayaashaada jinsi jacayl mar walba u muuji ayadoo weliba kala noocyo ah ku dadaal inaad joogtaysid arrimo uu ku farxo ousan kaa filanayn inuu ninkaadu kaa arko calaaqadiinna una muuji una turjun dareemayaashaada iyo xanaanadaada aad u haysid asaga suusan u raadin qof kale oo adiga uu kaaga beddel qaato raaxada qoyska iyo romantiga ka dhigo manhaj iyo waddo mar walba xidhiiriya jacaylkiinna iyo noloshiinna oo aan ka marnayn ha noqon qof iska qabow oo aan dareemo lahayn oo waxba nolosha qoyska iyo sariirta aan ka fahansanayn taasna iisu kugu xambaarin inaad raadisid filimaan khiyaali ah oo riwaayad ah kaasi waa fashil haddaad intaad soo ogaatay sariirtaada ku tijaabisid waa fashilmaysaa in badan waxaan dhahnaa qofka inuu cuskadaa muhiim ah shakhsiyaddiisa iyo qofnimadiisa oo asaguu la imaado hal abuurka iyo soo jiidashada u noqo gabar yahay ninkaada markuu guriga joogo inuu raaxo qabow oo deggan uu haysto laakiin dhibaato hadday guriga uga horrayso waa mushkilad mar kasta ku fakar in ninkaada camalka iyo shaqada uu si nabada uga soo noqdo marka ku raaxaysta wakhtigiinna si siman guriga iyo meeshuu seexanayo iyo jawiga guriga ooga dhig mid deggan oo qabow oo maasha allah ah oo markasta soo xiiseeyo inta uu ka maqan yahay adugu ku abuur bal ka waran hadduu baxo adna haddaad dhinacaada u baxdid markuu imaadana dhinacaada aad ka timaadid oo meelaha aad iska wareegaysid iyo dad aan danahaada ku hayn waxbana kaa qusayn inaad daba oradid iyo aroosyo aan la aqoon oo aad iska wareegaysid bal ka war shaki kuma jiro inuu kaa beddel qaadanayo hadhowna waxaad leedahay ninkiibaa ila guursaday oo khiyaamay uga qariyey sababtu waa maxay sababtu waa adiga qodobka kale waxaa weeye gabar yahay ninkaada markuu raaxada gogasha kula samaynayo u muuji qaabab kala duwan oo wanaagsan yuusa isdhihin noocaas ma taqaan mid taqaana raadi hadba beddel aas-aaska calaaqada ee guulaysata waxaa weeye waa isbeddelka kala duwan si uusan ninkaada kaaga cararin ama uusan u raadin mid kale isku day inaad noqotid adiga haweenay kasta raaxaday taqaano adiga inaad taqaanid marka noqo gabar ilbax wanaagsan leh aad baad ugu mahadsantihiin daawashadiinna iyo dhegaysigiinna wanaagsan jasaakumullahu khayran baa idin leennahay allah idinka abaalmariyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu